inkastoo ay guuldaro la kulantay haddana Ramla waa gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee tartankan ku matasha dalka Soomaaliya waana taariikh qurux badan oo ay Ramla yeelatay markii jalaska ama kambaleelka la yeeriyay ayuu dagaalkan feerka ah bilowday dagaalkaas oo ay isaga soo horjeedeen Ramla Cali oo matalaysay dalka Soomaaliya iyo Mario Culutio Nechitio oo u dhalatay dalkaasi Romania tartankan oo qayb ka ahaa tartanka Olombikada adduunka ee ka socda magaalada Tokyo ee dalka Japan ayaa waxay ugu dambeyntii guusha raacday Nechitio oo u dhalatay dalkaasi Romania Ramla Cali ayaa la kulantay guuldaro 5-0 waxayna si rasmi ah ugu hartay tartankaasi Faadumo Cali Nuur oo hogaaminaysay ciyaartoyda Soomaaliyeed ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Olombikada oo u waramaysay laanta af Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegtay in Ramla Cali ay muujisay dadaal dheeraada hasaate uu nasiibka ka hiiliyay waan ka soo baxay ciyaartii waan fadhinay waa daawanaynay aniga xogeeyaha iyo gudoomiyaha waa joognay garoonkan joognay ilaa ay ciyaarta ka dhamaatana waa daawanaynay oo ay ka baxday ciyaartoyda meesha waana ka soo tagnay hadda ciyaartiin waxay ku dhamaatay in ay Romania badisay maxaa loogu guuleystaa leedahay ee Ramla Cali wax weyn oo hadda aan dhihi karo waa looga adkaaday ma jirin laakiin nasiib baa looga adkaaday dhihi karaa way dadaashay qaybteeda hore ciyaartan si fiican bay u ciyaartay raamkii koowaad iyo kii labaad kii dambe xoogaa meelo laga taataabanayo dhibcaha saasaa looga dhibcabatay laakiin aad si kastaba ha ahaatee shacbiga Soomaaliyeed oo shaashadaha kala socday tartankan ayaa ammaan iyo bogaadin u jeediyay Ramla Cali waxayna ku tilmaameen inay tahay geesiyadii ugu horeysay ee dalkeeda ku matasha feerka Olombikada adduunka waxayna ku tilmaameen inay tahay gabar mar walba mudan ammaan iyo dhiirigelin joogto ah